maxamuud culusow waxa uu jaamacadda ummadda loo aqbalay sanadkii 1990 balse waxa uu ku biiray bishii la soo dhaafay muddada intaa la egna waxa uu sugayay dib u furista kulliyadda saxaafadda balse wargeyskii xidigta Oktoobar oo lahayd dowladdii militariga ayaa soo bixitaankiisa 27 sano ka hor istaagay haddaba warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo haya wariye Cali Nuur Salaad waa farxad soo daahday oo uu hadda la wadaagayo ardayda cusub ee fasalkiisa 27 sano kadib maxamuud culusow waa 50 jir marna kuma uusan fikiraynin in uu fursadan dib u heli doono waxa uu u haystay in ay tahay mid ka khasaartay oo aan soo noqon doonin sanadkii 1991 waxa uu ka mid ahaa ardaydii ku guulaysatay in ay bilaabaan jaamacaddii ummadda sida ku qoran wargeyskan waxa uu ka mid ahaa ardaydii nasiibka u heshay jaamacadda waxa uu wargeyska dhowristiisa ku mitiday muddo dhibaato iyo qax badan uu ku jiray waxaan ku mintiday inaan xafido waxaan ku qaaday fursadeyda marka waa la raacay mid kala degay hatta biyaal dhamaray oo i badbaaday markaan hadan meesha tagay waxaan taqaanaa noo shaqo teenimada guri aan degnaan jirnay dhalinyarada degan waa la baaraa wax walba oo soo gala oo la qaato waa la qaajin laakiin waa ku mintiday marka inaan qato waxa kaliya oo reference aniga aan leeyahay oo birka ma hadii aan fursad helo aan ku doodi karo maxamuud wargeyska ilaalintiisa kuma uusan khasaarin waxa uu u noqday fure uu ku galo jaamacadda ummadda mar labaad sideese loogu ogolaaday journalka ka qaaday waxaan la fadhiistay diiwaaniyaha guud general register iyo rectorka jaamacadda ardaygaas jira waxaan ka yeelnaa wuuna baasay waxaan isku raacnaa ardayga inuu arday imtixaan baas u yahay shahaadadiisa u wato in lagu qoro ardayda kale imtixaan ay ku galeen sanadka laakiin asaga imtixaankiisa 27 sano ka hor ayuu baasay wuxuuna la yimid burhaan 3 sanadood kadib markii dib loo furay jaamacaddan waxa ay dhab ka dhigaysaa riyada kumanaan Soomaali ah oo uu maxamuud culusow ka mid yahay kuwaasi oo mar uun ku haminayay in ay helaan waxbarasho lacag la'aan ah balse duruufihii ammaan ee dalka ka jiray ay ka hortaagnaayeen arrinkaasi maanta waxa ay isku fasal yihiin ardayda uu dhali karo oo iyaguna ka faa'iideysta waaya aragnimadiisa nololeed wuxuu nagu dhiirigeliyaa xagga waxbarashada la talin dheeraadaan ka helnaa waxaan dhihi karnaa waa aabihii fasalka markaas si loo eego jaamacadda ummadda oo la aasaasay sanadkii 1954 waa jaamacadda keliya ee dowladda Soomaaliya ay iminka maamusho sanado badan oo ka lumay maxamuud waxaa hadda hor yaala mustaqbal uu ku dhammaystiro waxbarashadiisii waxa uuna tusaale wanaagsan u yahay ardayda wax la barta iyo kuwa kale ee aan waxbarashada haysan Cali Nuur Salaad BBC Muqdisho